السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال أصحابتنا كسو دوادا جنال كينا روان جنال روان إيو أبو روان عاوة وحا إذن كالا دحبحايا إذنك إيو روان وإذن هسا قصو حقيقة لوسو كيشي إن إذن سو قد بسو روان كسو دو. أيوة هاي صحاب تقالي دمانتين مeel kasta joogtaan waan idin salaamayaa sidaan horeba idin ka ballan qaaday waxaa jira qisooyin dhacdo ah oo dadka ku dhacaan nala soo xiriiraan idhaahdaan noo soo daaya soo galiya qotiyaan qof kale magaciisa la sheegay marka insha Allah bismillah waxaan ka sheekeynaynaa wax weeyaan qiso aad iyo aad u xanuun badan oo aad ii damaqday oo qof kasto dhageysta oo aad u yaabay marka qisadaas waxay ku bilaabmaysaa sida tan qisadu waxay ku dhacday gabadh joogtay ka timid Soomaaliya gabadhaas waxay timid hadii la ku rooyahay wadamada Yurubta iyo taariikhda gabadhaas waxay saaxiib ahaayeen gabadh joogtay magaalo kamid ah wadanka Soomaaliya marka gabadhii saaxiibadeeda ahayd gabadha marka hore waxay saaxiib ahaayeen walaasheed haday saaxiib ahaayeen walaasheed magaalada ka tagtay magaalo kale tagtay walaasheed ayay bartay waxay ka dhigatay sidii ay walaasheed oo kale ay nantii si fiican bay qadarin jirtay si fiican bay xiriirin jirtay asxaab bay haayeen gabadha marka baxaysa Yurub tagaysa gabadhan waxay ka soo qaadatay inay tahay walaasheed hooyadeed iyo aabaheed dhaleen oo kale wax kasto nolosheeda ku soo biira wax kasto ku cusub wax wala marxalad wala mareysaba way u sheegi jirtay kadib gabadhii waa la guursaday markii hore lama qabin inantii markii la guursaday kadib ayay waxay sameysay inantan way soo baxaysay safarkan ay u qorshaysnaa Yurub inay u soo hayaanto way soo baxday meel kasta ku sugan tahay meel kasta joogtay ilaa intay safarkii dheeraay Yurub laga gaadhay ay tagaysay kolba meesha ku sugan dhan way la soo xiriiri jirtay tiyoon hooyadeed iyo aabaheed garaacin ay waxay telefoonka u soo diri jirtay marka ugu horreysay telefoon hashabilo qof tahriibaysay inantii saaxiibadeed ay walaashad ka dhigatay taas reerkooda u sii gudbinaysay akhbaarteeda markasta iyadu tan ay la soo hadlaysay inantii Yurub bay tagtay way u soo sheegtay in Yurub tagtay ilaahay nabadgeeyay waxay tagtay markay Yurub tagtay inantii isdhiibtay waa markasta dixriiq waxaantii dadka la geeyaa kaamkii tiyo ku jirta ayaa waxa casuumay asxaab kamida dadkii magaalada sii joogay oo dadka iyaga kula jira kaamka isgaranayeen dhowr hablood iyo dhowr inamood baxay way baxeen oo asxaab marka inta kaamka isku dhow way baxeen gurigii baa laga casuumay markii waxay weydiisatay telefoon qad inay ka heli karto telefoonkii baa la siiyay inaba telefoonkii siiyay waxay samaysay inantii saaxiibadeed ay sida caadada u ahayd bay markasta garaaci jirtay bay la hadashay waxay tii maanta waan soo baxay magaalada joognaa dadkana isla soconay qaar kamid ah safarka dheer isla galnay dadii qaraabo yihiin oo jooga magaalada iyagu sharci laan casuumay halka casuumidaas aan ku suganahay lambarkan iyaga ka qaatay waan fiicanahay xaaladeedu waa ka wax kasta oo sheegtay sida caadada ahayd ay wuxuu ugu sheegi jirtay hayee ku tiri way soo baxday kaamkeedii ku soo noqotay adiga inantii waxa dhacday sharcigii la siiyay markiiba ilaahay u fududeeyay sharcigii markii la siiyay inana intaas oo dhan isla tahriibayeen oo isla socdeen oo safarka dheer Yurub loo maray isku barteen ayayna isku fiicnaadeen oo markii hore walaaltinimo waxay iska dhaxaysay sheekadii guur bay gaadhay wax kasta oo sheegtaa ilaa inta sheekadu isku bedeshay in sheekaasi dhex marto ilaa sheekadii maanta guurka noqotay wax kasta oo sheegtay iyada reerkooda uga sii horeysay intaan aabeed kala weydiisan sidii inantii waa lagu meheriyay sidii bay ugu sheegtay inankii sidii bay ku aqal galeen waxa dhacday inan kamida maalintii la casuumiyay dadkii la socday taariikhdan isla haayeen ayaa inankii telefoonkiisa ay inantan ka garaacatay dadkii casuumay kamid ahay saaxiibadeedii kala hadashay wadankii joogtay ayaa inantii ka helay inantii kula soo xiriiray markii horena inan baa geeyay meeshan groupkooda kamid ahaa kadib markuu la soo xiriiray uu sheekada u sheegay ayaa waxa la yiri inantii loo sheegay inankaas ka helay waa ka caadi bixin inanku meeshu sii deganaa sharci u lahaa sidii bay inantii isku barteen muddo markay wada socdeen inantii waxay ogaatay la isdhex galay la isku wanaagsanaaday telefoonkiisa uu mala uga tagay maalin waxay aragtay inantii ay inantan saaxiibadeed saaxiibka ahina wadankii joogtay saacad walba la hadli jirtay oo inankan ugu jirta qadka meel kasta kala hadlayso oo sheekada la isku fiican yahay ayay aragtay bas way soo baxday waxay la soo hadashay inantii kale waxa ku tirnayaa ninka aad bartay saaxiibadaadii joogtay wadankii maxaad igu qiyaantay ugu tirin ka ayantii nacsuuma ka helo ku doonay walaal hiblaaye inanka maad la sheekaysan maxaad igu tiri waxay tiri saaxiibadii ani saaxiibadii waa la qabaa ku tirmad waalan tahay saaxiibadii waa gabadh dheer leh nin baa qaba waa marwo waana qaltantay mar dambe hadalka ku celin waana walaashay rumaadba haddaad kelmadda ku celisay inaad soo keen wada naamad waalan tahay
inantii baa daalac u raacday inantii sidii ku kala dhinteen okay markii muddo yar ka soo wareegtay ayaa waxa dhacday ninkeedii waa kan sharciga qaatay iyadii kaba sharciga u soo dhaceen dama la isku qoray mid kasta goonidiisu isku dhibiyay oo sharciga qaatay oo isku kursadeen wuxuu sameeyay inuu gabadh laynkii ka iibsado uu ka soo kaxeeyo wadankii Soomaaliya meel ka mid ah iyada uga sii horeynaysa wax kasta oo sheegaysa waxay tiri aniga waxa saasam sameeynaa ninkeyga wuxuu soo qaadayaa gabadh ka iibsanay ana sidoo kale nin baan rabaa inaan soo qaado ka iibsado kadib anaga dawladda markaas oo isku qabnaa hadhow dib kan idhaahana haye masaasa ha soo ninka khadka bigu jirtaa oo la soo hadashaa way shukaasata liftigeeda naagta ninka qaba liftigiisa ninkii sheekadu waa sii wacnaatay waxay ku tirnay waa adiga imanaya caynkan waxaan doonayaa sharcigan igu qaado waa ka waayib ku yiraahdo sharciga yar baan haystay Itoobiya ay isku nimaadno laakiin isagu marka xaalkiisa way ogtahay oo Itoobiya sheegtay ma gaar kara caasimadda wadanku joogo wani iskool iyo waxbarasho dhigto wuxuu qaatay xawlba dib u xisaabsan yihiin marka Yurubta la joogo laakiin gabadha wuxuu ku wada beenta lugooyada dakiyo la yaaban gabadhan saacad walba walaashay leedahay khadka ugu jirta ee isagina shukaansanaysa iyada shukaansi waqtigeeda soo garaacaysa oo hadalkii laakiin deewayna raga uu iska wada waxa sheekada sidii ahaato muddo ahaataba wuxuu baa yaamid dama ku dhahay ku soo salaamaysay iyadna waxay samaysay xiriirkii gabadhii saaxiibadeedii way yaraysay tanuunba markasta la hadasha xiriirkii taas way gaabsatay waxay tiri waan shakiyo dhowr goor marka intaan markasta xiriiriya maalin kasta aan gulaadnay wax kasta sidii ugu sheegto وسنا يقول هذا دول شيء كده بيحب لك بسوي سلام يستوي ولا صح هذا الشيء هي يرش كي تلو بس يحب التليفون كذا بتقانا يعني كان هاي كرب تاسي دقيقة ده مركز طار يقولوا سلام يستوي ما ذي كل بقول صح هذا الشيء ولي واحد ترشك غير بايقري لكن اسمه دبي مال ما كان بدأ يحصل يصير نيجي السكول بديناي وحد دقنا قبل كلا وحد دقناي سلمي دقرين ما كان حل جاي ده وحد يقطر التليفون كذا يعني لما يرمون حبش ذي يدي لما يسود عليه وحد كوير ما يعني مثل كلام هو كان عصو ما كان هذا عصبيني بني كان سكير الدالة قاضي أوكي وير التليفون كي وقعت ده طبعا ده كلها دجرنا ده ولا بلمن كيد وقعت واحد سميسي واحد شبسطي ان تليفون كيسي نكي يعني شبسن كرتو ان فيسبوك كيسي واحد قال شبسطي واتساب كيسي كل شيء وشبسطي نيجي نحط قبض برشدي يسكول كيسي ما تشوفه بعدين واحد سميسي واحد أركتي intaas oo naabood oo ninkeedii la soo hadlaay intaas waxay tirimay dhibin ee waxay dhibay bay tiro qarax anigu noqday gabadhii walaashay ahayd oo ninkii de risaalo qoraaladiis weydaarsadeen Itoobiyani ballanto ahayd inay wax kastaba deedan tahay sheekadii waxay tiraan u qaadan waay waxay tir waan yaabay waan bloogay qoraal baan qoray dumarkii kale dhan waan ka bloogay waxay tir WhatsApp-kii sidii oo kale haddana waxay tir dumarkii kale waxay tir kuma noqonin deena rag damac gabadha maatay waxay waxaan ka qaraacmay gabadhii walaashay ahayd in markasta fariinta reerkayga ugu horeysiin jiray waxay tir waxay sidii ahaataba ninkii baa yimid de gabadha ninkii tii dheereed baa kala martay adigu waxay cabaar ka dib ninkii gabadha way heshiiyeen gabadhii saaxiibadeed ahaydna gabadhii taas u hibaysay nolosheeda u jeclay gabadhii qaracan bay ku noqotay sheekadii dib bay ku noqotay u qaadan waa bay ku noqotay ilaa ninkeedii bay isugu dhaceen wuxuu dhan inaan meel noo socon wada geeyo de waan yaab aniga saaxiibadii waa la qabay aniga saaxiibada horta kaama ugu wareysanba laakiin gabadha walaashi ka dhigin jirto banarki jiray ma gabadha la qabay aniga shukaansanaysa markii ugu dibka heshiiyeen mushkiladda markaa taalba waxay tahay ee laga hadlayo sheekada gabadha ugu soo gudbisay horta dumarka de inta badan saaxiib bay leeyihiin laakiin ta laga hadlayo muhiimadda waxay tahay saaxiibka dumarka in la iska ogaado saaxiibada waa wax kasta oo kugu sameyn karta gabadha naftii u horeysay waxa kaaga daran waa idin soo sheeka dhaafay ninkeeda intaan isku dhicin aan telefoonka furin waxa ku horeysay waxay ku tiri saaxiibay waan soo baxaya ninkii waan isku dhacnay haye waxaan doonayaa inaan soo baxo Itoobiya imaado waxay u dirtay lacag ay Itoobiya ku timaado waxay ku tiri markaa qarshaar baa lagu jiraa laakiin lacagtaas aan ku soo diray lacagtaas Itoobiya ku keenaysa يعني waxay doonaysaa Itoobiya markay timaado bishii xigta markay waxay qaadanaysaa qaadato inay ka caawiso lacagta haddana ku iman lahayd Liibiya gabadhan Liibiya oo socon Itoobiya waxay socotay ay lacagta uga qaadanaysaa gabadhan ninkeedu inuu imaado ku guursado ninkii qabin waxa loo soo sheegay in mushkilad ku sameeyay ku tiri fur kuma doonayay tiyo ninka Yurub jooga shukaastay ee haddana saaxiibadeed qabay balilaaha baan idinku dhaariyay ka warram aqliga halka gabadhu ka galay يعني waxaween diiniyan xataa gabadha xataa saaxiibada ninkeeda jeclaato waa la arki jiray danaag faadiyo nina qabin laakiin bal naag nin qabo oo doontay in ninkeedii iska soo furto oo ninkii saaxiibada intii la sheekaysatay iska soo furtay
ay saaxiibadeedna ninkeeda u bartay inay walaasha tahay hooyadeedii aabaheed dhalan oo kale ay ka dhiganaysa. yacni qisadaas waxay igu noqotay wallahi qiso cajiiba. markii inantu ii sheegtay 2 habeen ka hor bay sheegtay anaa waqti haynin saasaan u soo gelin. waxay igu noqotay waxaan ka seexan waayay markasta niyadeyda kusoo noqonaysay. saaxiib waan soo taaliibay ninkii waa isku dhahnay waana iska furaya maba doonayo laakiin habay dambe furninkii waan soo baxayaa ii soo dir lacag Itoobiya ku imaado. Itoobiyada imanaysana ninkeeda kula ballansanay ilaahay baa ka shifay. khiyaanadaasna way dhamaatay. gabadhii ninkii isku dhex kadib markii ay telefoonkiisa wixii dhan ka aragtay saan hore idinku soo sheegay isku dhex kadib markii ay ka heshiiyeen ninkana ma ogeyn gabadhan in la qabo. marka hadda waxaan kusoo gabagabeynayaa oo idin sheegayaa saaxiibka dumarka la isku ogaado. dumarku tu fiican iyo tu xun way leeyihiin laakiin tooda xun ee waxa badan aanad filinayn ee kugu noqonaysa mid dhul taala hadhowna kugu noqonaysa la fooguri mari weyday ee aan ka dhaadhacayn. ma fahantay markaas aduguna waxaad oranaydaa rawaan oo ku tarsanahay qisooyinka aan soo gudbinayno inta badan macnaheeda ma aha in la iska sheego kaliya sheeko ama qisada saas u dhacday. horta qisada waa qiso xaqiiqo ah. anaga waxaan xaqiiqo ahayna ma sheegno oo soo gudbin balse ma carab ah ayaa waxay tiraahdaa saaxib nafsak tartaax. yani naftaada la saaxiib saa u irtaax oo maaragtay aadan maxay ahayto mushkilad iyo waxsaa aadan gelin. saaxiibnimadu wax weyn waaye waa shay qaali ah. dunida inta badan Soomaalida xataa waxay ku mahmaahdaa maxay ahayto waxaa jira al-macrifatu al-qadiim khayr min an-nasab. kastoo ma carab tahay laakiin Soomaalida waxaa waaye waxay u isticmaashaa iyadoo luqada carabiga ku sheegaysa taasoo macnaheedu tahay macrifada qadiimka ah tolka iyo ehelka ay maaragtay ka wanaagsan tahay. waxaa jira dad badan oo aan isla dhalan ama isku qabiil ahayn ama maaragtay haddana nafta isu hora oo maaragtay sida dad walaalo ah oo kale. waanada ama talada aan soo gudbinayno waxay tahay horta musaamaxa inay jirto mar walbo in la issaamaxo oo labadii qofood oo asxaabta ahayd qofka saaxiibkii dhibta ku sameeyay inuu qofka iska cafiyo uu saamaxo uu qofkaas u dareensiiyo in ay darsi u tahay amaba cashar u tahay in uu sadaaqadii ama saaxiibnimadii ku xadgudbay. tan labaadna waxay tahay waxaa waaye in adiga aan la ogaanin sirahaaga. maxaa yeelay qofka ma aha in aad adiga albaabkaaga aad u wada furto si uu noloshaada u soo galo. maxaa dhacay mar walbo adiga aad noloshaada albaabkeeda qof u furto oo wax walba aad u sheegto qofkaas waa qof bini aadan ah. dad badan waxaa jiro inta badan isku dhaca oo isku qabsada hebel hadal sheegay ama heblaha hadal sheegtay. qofka hadalka laga sheegayo hadalka waxaa ogaataa markii aad sheegtay in adiga aadan mas'uul ka ahayn. maadaama adiga aad sheegtayna waxaa ogaataa hadalkaas in la sheegayo wax jiro oo waaqac ah waaye oo la hubo. marka dardaaranka aan usoo jeedinayno waxaa waaye dadka asxaabtooda ku kalsoon in inta badan wixii qoyskooda ama noloshooda qaaska ah quseeya aysan asxaabtooda la sheergaraynin. saaxiibada iyagana noocaas oo kale u dhaqmaayo waxaan talo iyo dardaaran u siinaynaa in aan maaragtay lagu xadgudbin saaxiibnimada. maxaa yeelay saaxiibnimada waa xuduud aad u adag. haddii ay burburtana way adag tahay sida lagu soo celiyo. kalsoonida wax walba ka muhiimsan. aadna waa u mahadsantihiin dhammaan asxaabta ku xiran janaalkeena isaga oo muddo 3 bilood aan weli u dhammaanin ayaa waxaa gaarsiiseen meel aad u sareysa. waa idinkaga mahad celinaynaa. waxaa kaloo codsanaynaa in inta kale ee videogan aragto ee ummadda Soomaaliyeed ah aad nagu caawisaan oo maaragtay aad nagu dhiirigelisaan in aad nasiisaan subscribe videoyaasheena aad share gareysaan si channelkeena meesha maanta uu joogo email ka weyn uu gaaro. aadna u mahadsantihiin. tan kale ku darsanayana waxa weeyaan horta qofka bilaadka saaxiibka ma maarmo laakiin sida waa uu rawaanba sheegay waxaan ka codsanayaa siiba dumarka horta rag iyo dumarku isku mid maaha. siiba dumarka
arrimaha family-gaaga iyo ninkaaga iyo reerkaaga quseeya ha u sheegin qofka saaxiibkaaga. waxa saaxiibkaas sida kale saaxiib la ahaa dusha saaxiib kala ahaa wada socda, laakiin arrimaha ku quseeya adiga kaliya aad go'aan ka gaari karto hala sheer gareyn, ha u sheegin. tan kale ka hadlayaan waxa weeyaan dumarka saa u dhaqmaaya ana hal mid baan idinku waaninaya. walaal adduunka dhan rag baa jooga, saaxiibada ninkeeda kaliya ma joogo, kun ka fiican baa jooga, kun bartu joogo ka wanaagsan baa jira, meel kasii fog oo ka fiican baa jooga, kumanaan wanaagsan magaalada kula joogaa jira. laakiin saaxiibada ninkeeda inta damci lahayd waxaa leeyahay adiguna nin la-aan ka xig inaad ninba iska daysaa ku noqoto saaxiibada ninkeeda markaad damcayso, laana rag ka fiican baad helaysaa, sharaftaadana maaha. saaxiibada waa ku kala dhimanaysan, xataa berika maalin hadduu ninka ku yeelo ku guursado saaxiibada waa ku kala dhimanteen, isna kuma qiimeynayo. wuxuu ku arkay naag nin la-aan haystay oo saaxiibadeed adiga kiyo qaba dee damacday naag magaalada ninka soo wejisna ku arkay kuma qiimeynayo. marka adigoo sharaftaadina ilaashanaya, tii gabadha walaasha ay ku aamintana ilaashanaya, si kasta haddii ninkeeda kuugu ammaantay kaba dhacday gabadhaasi fududaato ha damcin, meel kale arsaaqad ka raadso. raggana waxaan u sheegaya idinka laftigiinu dee hal la xishoodo, gabadha saaxiibadeeda xataa ragga laftigiisu inay damcaan maaha, waa in laga xishoodaa oo walaasheedo kale aad ka soo qaaday, laana magaalada naag ka helaysaa, gabadheeda qabtay waxaad u keenaysaa niyad jab maskaxiyan baad u gaadhsiinaysaa. adoo magaalada naaga guursaday iyo adigoo gabadha saaxiibadeeda guursaday isku mid maaha. markastaba iyadoo tii go'aan kaa qaadan karto dee kolle taasi aanay kulaba noolaanin hadday sax tahay, laakiin waxaa meesha taalla haddana inaad ku darsato qof dhan inaad noloshiisa niyadiisa ku ciyaarin oo reer kuu ah oo kuu dhaqmaysa. asna magaalada xataa ka guursa dhibtaasi ma laha, taa iyadii go'aankeeda u taalla. raggana taasaan u sheegayaa mar walbana qoysku xushmad iyo ixtiraam bay kala mudan yihiin, in la is ixtiraamo oo la is xushmeeyo oo ninkuna gabadha iyada ku xawaaleysan dumarka hareeraheeda jooga asxaabteeda ehelkeeda haddii xataa jiraan u sharfo aan ku meeraysan meel kale hadduu xataa raadsanay ka raadsado, taana gabadha karaamadeeda waxaa taa kor u qaadaya. dumarka waxaan idin leeyahay mar walba ha la ilaaliyo siraha adiga reerkaaga inaanay banaanka kaaga bixin, taasina waa iga dardaaran. asxaabtina waxaan u sheegayaa qosooyinka saasoo kale waxay hayaha naloo soo gudbiyo, subscribe iyo share iyo like, commentigana waa noo muhiim, noo soo qora waxaa ka qabtiin say ra'yigaas idinla noqday. aad ay umahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.